shir madaxeed ka mid ah Afrika ayaa maanta si rasmi uga furmay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya waxaana dawladda Soomaaliya uga qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre wafdi hogaaminayo isagoo shirka ku soo bandhigay horumarka amni siyaasadeed dhaqaale ee ku talaabsatay dawladda Soomaaliya taa oo si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan ka qaybgalayaasha shirka. Furitaanka shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dalalka caalamka waxaana diiradda lagu saaray arrimaha maalgelinta dhalinyarada Afrika si ay u helaan fursado shaqo, waxbarasho iyo caafimaad iyo waxyaabihii ka hirgelay dib u habeyntii lagu sameeyay xubnaha midowga Afrika bishii January ee sanadkan iyo dhammaan xaaladaha ku xeeran qaaradda Afrika. madaxweynaha dawladda Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa shirka ka qayb galay si uu Afrika u weydiisto garab ku aadan sidii dadka reer Falastiin ay uga xoroobi lahaayeen dhibaatada ay kala kulmaan dawladda Israa'iil isagoo tilmaamay in caalamku looga baahan yahay inay u hiliyaan dadka reer Falastiin oo dhibaato soo jirana ay ku hayso Yahuudu. Shirka midowga Afrika ee maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ayaa socon doona muddo 2 maalin ah iyadoo laga soo saari doono warmurtiyeed haddii alla idmo quseeyo xaaladaha ku xeeran qaaradda Afrika. shirka midowga Afrika ee sanadkiiba 2 mar lagu qabto wadankan Itoobiya xarunta ay ku leeyihiin midowga Afrika ayaa shirkii 29aad waxaana sanadkan diiradda lagu saaray horumarinta dhalinyarada Afrika si ay u noqdaan dhalinyaro la tartama dhalinyarada asaagooda ee qaaradaha kale adduunka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Soomaaliya shirkan u matalaya sanadkan waana shir muhiim u ah Soomaaliya maadaama Soomaaliya dadkeedu yihiin 75% in ka badan dhalinyaro. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka xarunta midowga Afrika Addis Ababa.